ciyaaraha Olombikada laba dhacdo waaweyn ay dadku hadal hayaan midda koowaad oo hadda ugu dambeysay waa ninkan Turkishka ah kaasoo shootka 10 mitir tartamay wuxuuna soo galay kaalinta labaad ninkan marka qaabka uu labisnaay iyo bistoolada sida u shoodayay iyo sida dadka kale ugu downay ay dadku la yaabeen iyo soo kale qaabxaantiisa wajigiisa iyo yacni sida u degan yahay dadku marka waxay taagan yihiin ninkan waa nin dilaa weyn ah waxay noo soo direen Turkiya nin marka halis ah ninkan dadka kale wuxuu ugu downay inuusan wax yacni qalab ah oo soo wadan oo caawinayo hadii noqoto dadka kale waxay wateen dad indhaha waxyaaba uu jireen sidoo kale dhagaha waxa uu jireen waxa dhawaqa celinayo kale ninka marka gacmaha jeebka iska gashtay shootkiina uu la haleelay sidaasna wuxuu ku soo galay kaalinta labaad dadku waxay taagan yihiin hadduu qalabka soo qaadan lahay dad kale soo qaateen kaalinta koowaad inuu ku guuleysan lahay dadka qaar waxay leeyihiin ninkan ma uusan rabin inuu isfashilo wuxuu rabay kaliya easy inuu ku soo galo ninka halista ah gabadhii marka ku guuleysatay ee Suuriya ka imaatay record ayay jabisay kaalinta koowaadna ay ku soo baxday gabadhaas oo qalabkii lagu talagalay sidoo kale qalab casri ah wadatay